munaasabad lagu daafuriyo sanad dugsiyeedka 2018-2019 dugsiga Sheikh Modern School ee degmada Sheikh ayaa maanta ka qabsoontay hoolka dawladda hoose ee degmada Sheikh. Munaasabadaas ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee heer gobol iyo heer degmo, mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Sheikh iyo macallimiin, arday, waalidiin iyo marti sharaf kale aad u tiro badan. Waxa uu horeynta halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee dugsiga Yaasiin Maxamed Jaamac oo ka warbixiyay marxaladii kala duwan ee soo maray dugsigaasi. dal maanta ka yara hadlo dugsiga hadal badan wax ma tare kulba ku celimayne dugsigu marxaladuhu maraayay iyo maanta halku taagan yahay alxamdulillah waxa weeye faraq weyn baa u dhaxeeya hadaan ka hadalno sanad dugsiyeedka iyo inta socday dugsigu Sheikh Modern School laga soo bilaabo 2013 ilaa 2014 waxa u dhaxeeya faraq aad u weyn maanta uu dugsigu maraayo form 4 dugsigii iyo halkii ugu sareysay waxbarasho taasi waxa lagu ma gaadhin si yar lagu ma gaadhin waxa weeye dhammaan madax waxbarasho degmo waalidiin iyo macallimiin oo gacanta is wada qabsaday sidii iskuulka heerka loo gaarsiin lahaa marka waxaan leeyahay waalidiinta iyo madaxda waxbarashada macallimiinta ardayda dugsiga Sheikh Modern School aad iyo aad idinku mahad celinayaa iyo kaalmaha wanaagsan ee dugsigu sanad walba ka soo galo hadaan doob ugu yeelan noqono 6 sano ee u dambeeyay amka dugsigu sida fiican u shaqeynayay de waxa caan oo macruuf oo la yaqaan ay tahay inuu kaalmaha ugu sareeyo ka soo galay gobolka iyo kadaalika dalkaba 2016 kaalinta shanaad inuu istaagay dugsigu ee Soomaaliland taasna wax Ilaahay ma loogu mahad celiyo taasna cidla kama imanin waa juhud jabbaar ah oo macallimiin sidoo kale waxa iyaguna halkaasi gabayo iyo suugaana kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah ardaydii loo qabtay munaasabadaas. Geesta kale waxa iyaguna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay mas'uuliyiin tiro badan oo dhammaantoodba ku dheeraaday ammaan baahsan u soo jeediyay maamulaha iyo macallimiinta dugsigaasi kuna ammaanay waxbarashada tayada leh ay geliyaan ardayda dugsigaasi. Waxaana ka mid ah hadalladoodii saatani waa xaflad aad u qurux badan aad iyo aad noo qiiro gelisay aad bay wanaagsan yihiin waxa kaliyan ka faa'iideysan xafladda kaga faa'iideysanaya xagga amniga laba qodob baan kaga faa'iideysanaya mid waxa weeye xagga amniga midna waxa weeye xagga iimaanka in haddaynu wax barano oo aynaan maaragtay haddana garan Ilaahay wuxuu noo abuurtay yaqiidada Ilaahay noo abuurtay gaal iyo islaam jin iyo insi waxa loogu talagalay Ilaahay wuxuu noo ardayda waalidiinta wada mahadnaqaya xafladda qiimaha badanna waan ku hambalyeynaa iskuulka Modern maaha iskuul kale ee kana cusub labadii sano u dambeeyay gobolka saaxiibka isaga u galay marka runta la sheego aad iyo aad baan ugu mahadnaqay maamulka macallimiinta ardaydan tarbiyadooda iyo akhlaaqdooda iyo cilmiga bareeba waan ugu mahadnaqaynaa mar labaad mar saddexaad waa maasantay ardayda kaalmaha galay kuwa galina waan hambalyeynaa runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan usraagaasmay maamulka dugsiga Modern ee lagu abaalmarinayo ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaanaadkii naqliga ahaa. runtii iskuulkani waa iskuul ka mid ah iskuulada gobolka ee gaarka loo leeyahay waa iskuulkii ugu horeeyay gobolka laga asaaso runtii wuxuu iskuulada dawliga ah difference weyn uma dhaxeeyo xagga aqoontana hormuudka koobaad ee gobolka weeyaan 3 sano ugu dambeysay 4 sano ugu dambeysay waa iskuulka kaalmaha ugu horeeya dugsiga hoose dhexe gala waxa kale oo jirta waa iskuul barnaamijka dawladda mar walba ku shaqeeya ma aha bareefadada iskood isaga socda laakiin waa iskuul wasaaraddu hogaamiso oo qualification-ka macallimiinta foomka dhinac kastaba waxa weeyaan waa iskuulka Modern kan marka hore mahadnaqaya maamulihiisa macallimiinta maanta waxaan waqtigiinii siinayna kala qayb galnaa xafladiinan sanad guurada 2018-2019 soo sidaa ma ahayn kaalin wanaagsan baa maraysaan oo wax lagu faano Sheikh oo dhan baa guul soo hoyseen gobolka saaxil baa soo hoyseen Soomaaliland baa soo hoyseen mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambaliyo iskuulka Modern-ka ardaydii kaalimaha koowaad galay iyo labaad iyo saddexaad akhlaaqda iyagana waan hambalyeynaa waxaan leenahay iyagana hambaliyo ardayda kale waxaan leenahay ku dayda
kudayda kuwa tacliinta xagga hore ka galay kuwa akhlaaqda wanaagsan leh وإنك كنت من إذا أدوغنا إن السنة كتنبينا ugu dambeyntii waxaa halkaasi lagu abaalmariyay ardaydii kaalmaha sare ka galay imtixaanaadkii sanad dugsiyeedkii hore abaalmarinahaas oo ahaa kombiyuutar iyo dahab ayaa lagu abaalmariyay ardaydaasi waa maxamed cali axmed maxamed kaabe telefishinka caalamiga ee Ariel magaalada Sheekh ee gobolka Saaxil